ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxay saakay weerar ay ku qaadeen saldhig al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka helaya garab ciidamada dadka deegaanka ayaana saakay xilli hore weerar ku qaaday saldhig al-shabaab ay ku sugnaayeen isla markaana la sheegay in isku aruursanayeen oo ku yaala deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan la sheegay in howlgalka uu ahaa mid qorsheysan isla markaana lagu qaaday dagaalyahanada al-shabaab. ciidanka ayaa la sheegay inay cagta mariyeen dhufaysadii ciidanka al-shabaab ee ku yaala deegaanka Masaajid Cali Guduud isla markaana jab xoogan la gaarsiiyay dagaalyahanada al-shabaab ee weerarka lagu qaaday. saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa laga soo xigtay in ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka isgarabsanaya ay ku guuleysteen inay cagta mariyaan isla markaana gacanta ay ku dhigaan saldhigyadii ay ku sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab ee ku yaala deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe.